maalmahan waxaynu ku jirnaa mawsimkii xafladaha jaamacadaha la qabanayay waana tay ugu dhalisay kelmadda xijaabka ku saabsan maanta khudbadda inaan ka dhigo haddaad eegto wararka iyo haddaad tagto goobaha xafladaha lagu qabanayo waxaad is odhanaysaa markaad eegto in fara badan oo hablaha ka mida waxaad is odhanaysaa talow meeshani ma meel ku taallaba waddamada qarbiga reer galbeedka oo lagu qabanayo tartankii quruxda ee hablaha lagu tartansiinayay quruxdooda inay soo bandhigaan sida looga tegay xijaabkii ilaahay uu dumarka amray ee jidhkooda dhan inuu asturo ay ahayd ee qaybo jidhkii dumarka ka mid uu muuqdo iyo sida habluhu ay u muujiyeen quruxdii marka la eego dharka ay soo xidheen iyo waxa ay ismariyeenba arrinta noocaasi waa macsiyatun lilaahi walirasuulih waa caasi ilaahay la caasiyey caasiyitaan ilaahay la caasiyey rasuulkiisa xaaladaha aynu ku jirrana waxyaaba inagu adkaynaya bay ka mid tahay hadday tahay abaar iyo hadday tahay sicir marar iyo hadday tahay khilaaf iyo hadday tahay horumar la'aan inuu ilaahayna waafajin waayo waddadii aynu ku horumari lahayn waayo ilaahay subxaana wa tacaala daacadiisa ayaa wanaag oo dhan lagu helaa ilaahay haddii la caasiyana oo laga cadhaysiiyana ilaahay ciqaabkiisa ayaa ku dhacaaya waayo aayaddii baynu rumaysanaynu garanaynaa xadiidkii baynu rumaysanaynu garanaynaa markaasaynu khilaafaynaa ilaahay subxaana wa tacaala hableennu ha ka baqaan waa dumar muslimaada oo mu'minaad ah ha noqdaan dumarkii saxaabada ee sharafta lahaa siday ahaayeen kuwa qudwo iyo tusaale fiicana ka dhigtaan dumarka gaalada ee macuurtoonka ah ee murugada iyo warwarka iyo walbahaarka ku nool iimaan la'aan iyo daaca la'aan awgeed yaanay tusaale ka dhiganin qof walibana cidda uu tusaale ka dhigtaa halkay uga horreeyeen ayuunbu isaguna tegaya qofkaad waddadiisa aad martaa waddadaasi halkay geysay ee adiguna tegaysa nebi maxamed baa yidhi sida imaamu axmed wariyey man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum qofka qoom isu ekaysiya waxa uu isaga ekaysiiyey iyaga ayuu kala xukumaya raggana mas-uuliyad baa saaran kullukum mas-uul kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati falimaamu raacin mas-uulun can raciyati dowladda mas-uuliyad baa saaran yaanay moodin madaxdu inaan la weydiinahayn in badanoo ka mida xafladaha way tagaan waxaana way arkayaan juuqna kama yidhaahdaan waxaana laga inaanay kuma baraarugsanayn inay mas-uuliyaddooda ka mid tahay dumarkan inay wanaagga faraan oo xumaantan ay ka reebaan oo sida culimmadu kutub alfiqi wakayriha ay ku qoreen wulaatul amriga iyo madaxda waxaa waajib ku ah tabarrujka inay mamnuucaan oo dumarka aanay ka oggolaan inay dabadda u soo baxaan si aan iyagana dhibaata aanay u gaadhin adduunyada ku gaadha iyo mid aakhiro ku gaadha oo macsiyadaa ka dhalata raggana si aanay u fitnayn waa mid iska macluuma gabadha isqaawisay raadka xunee ragga ay ku leedaho iska macluum kuwa yidhi lab iyo dhadigma kala jiro ninka iyo gabadhu waa isku mid arrin khilqiya oo fitriya oo fitrada saliimka lagu dareemayo ayay isdiidsiinayaan qof waliba u garanaya gabadh qurux badan hadday qolkaa kula gasho adna sariirtaa ku seexato ama halkaa fadhiisadan halkaa fadhiisato ajannabina way kaa tahay waa gabadh guurkeedu xalaal kuyo aad guursan karto iyo haddii lagu idhaahdo ninkaa hebela qolkaa wada seexda sariirta adna sariirtaa ku seexo meesha wada fadhiista labadaa xaalood inaanay isku mid ahayn isku dareenna aanay ahayn qof kasta oo damiirkiisa iyo qalbigiisu aanu dhiman u garanaya wax xaqiiqo oo iyaguba ay dareemayaan bay isdiidsiinayaan waalidka waajib baa saaran ugu yaraan alamru bilmacruuf annahyi can ilmunkar iyo inaanay ku caawin hablahooda isqaawinta iyo tabarrujka inaanay ku caawin jilbaabka far waa waajib u saaran qaawanaantana ka reebo ka waani intaa dabadeed hadday ku diiddo aanad kuna caawin adigu waajibkaagii waad gudatay laakiin haddaanad waajibkaagiiba gudan ka warran oo maalinna aanad inantaada inay xijaabata aanad u sheegin qaawanaantana aanad ka waanin soo noqon maysid qof dayacay wixii ilaahay uu faray oo arrintaa mid ku dembaabay soo noqon maysid oo ilaahay subxaana wa tacaala ciqaabkiisa ku mutaysta ilaahay subxaana wa tacaala guud ahaan walaalayaal aynu ka baqanno waxaa nolosha wanaagsan ee qiimaha iyo dhadhanka iyo nafciga lihi ku jiraa
إلهي سبحانه وتعالى يا رسول كيسينين وأضيعنا تاسنا إنو ديدي ميسو وحي وناكسنا نفع الدوية نوله والدين تينو ماها دين دادك عنيري قليسي ووحي واحتروا الله ودي دي معها marka horeba inta laynaga xaaraantimeeyo waa in kooban oo dhib inoo la qul wax la cuniyo wax la cabiyo wax la xidhiyo wax la gashadiyo wax gaadiid laga dhigtiyo guri la galo iyo wax la iibiyo iyo mucaamalaadka dad ka dhaxeeya asal waxa looga dhigay xalaalnimo in kooban oo dhib inoo la ayuu baa laynoo diiday warinta aynu iska dayno maalmaha kooban ee adduunyada dusheeda aynu ku noolnahay إلهي بين سبحانه وتعالى كبرين وتاينا وافجيو اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.